hadday dhimrinta iyo naxariista isticmaalaan way jirayaan. haddii islaantu ay kakanaato qaylo badnaato ama odaygu askari uu noqdo marka uu soo galo awaamir uu bixiyo yararku darbiyada kala galaan qofba meel ku dhuunto sidii kornayl guriga soo galay hadday saa noqoto nabigu wuxuu leeyahay idaa araada allahu biahli beytin khayra adkhala calayhim alrifqa baa nabigu yidhi guri haddii ilaahay khayr la doono dabacsaniduu geliyaabaa ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam guri haddii khayr lala doono walidalik baa gurigii nebiga nebi mugaa wuxuu leeyahay caaisha ay waan aqaanaa markaad ii cadhaysantay bal hadda u fiirso waa caashoo cadhootay oo guriga joogta laakiin maxay samaynaysaa calaamaddu nebigu ku garanaya inay cadhoonaysa ma inay timaa iska riftaaba mise waa inay qaylaysa mise waa inay buuqda maya nebigu wuxuu yidhi markaad cadhaysantay waan gartaa waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maxaad ku garanaysaa wuxuu nebigu ku yidhi markaad faraxsan tahayna waxaad tidhahdaa laa warabbu muxamed markaad cadhootana waxaad tidhaahdaa laa warabbu ibraahim haddaadaanad cadhadu ku haynna arrinku sidaa maaha baad tidhahdaa nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartaye laakiin markaad cadhaysantahay waxaad tidhahdaa buu nebigu yidhi arrinku sidaa maaha nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartaye dabeetana nebigu waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiya wax kale ma sameeyo markaa cadhoodo dee magacaagu marafka ka daayaabay leedahay nebi ibraahim baan soo qaadaa halkii aan adiga kaaga soo qaadi laha yacni dadka cadhadoodii ku soo koobay inay dhaarteedun beddesho halkay warabbu moxamed ka lahayd ay tidhaahdo maxay warabbu ibraahim inay tidhaahdo waxaan leenahay markaa guri kasta oo ku dhisan caynkan aabbo kasta iyo hooye kasta oo carruur haya macallin kasta iyo macallimad kastoo wax dhigta waxaan leenahay qofka aad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur intaanu caqliga furin haddaad tidhahdaa awaamir iyo xoog tuko qasab saan yeel inta uu yaryey deela waa la tumayaayo uu iska aqbali laakiin maalintuu dhowr iyo 10 jir gaadho innaga intaa qaylada buu ku odhanaya maalintuu dhowr iyo 10 gaadho tarbiyada xooggaahi ma socoto markaa meel ma gaadhayso laakiin haddaad qalbigiisa furto qofka kan oo ilmahan xanaan aad u muujiso waxaa laga yaabaa inaad aragto dhaqanka ilmo markuu tago kindergardenkana faraxsan waayo islaanta kindergardenka joogtaa subaxii markaad u geyso intay u fadhiisataa bay mucaanaqaysaa ka yar intay jilbaha dhulka u dhigto marka yare adigu aad waday ayay mucaanaqaysaa hadhow markay kugu soo daraysana waa soo mucaanaqaysaa klan bay soo siisaa hadhowna adiguna adigoo gacanta hayoo jiidayada war hore u soo soco leh ayaad dhigtaa waad ka dhaqaaqdaa hadhowna mee xagu jira war soo bax gaadhiga fuula haltan baanu nahaye gaadhigaad kula carartaa idan markuu xaggeeda u sii socdana waa inuu faraxsanaadaa adiga xaggaaga markuu u soo socdana rabshad baa ku soo socotay waa inuu caraysnaadaade iyadu qalbigiisay furtay saa daraaddeed macallimaddu waxay sheegtay kasta uu rumaysay rub uu haystaa macallimaddii baa saa tiduu ku odhanaya waayo macallimaddu qalbigiisay furatay kadib caqligiisu waxbuu aqbalaya adiguna adigoo aan qalbiga furin baad waxaad rabtaa inaad caqliga uu kuu furmo suurtagalla maaha ilma haddaad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur dhunko soo dhowee eray fiican ku dheh ammaan markaasaa qalbigiisu kuu furmaya xataa hadduu qalad sameeyey qofku ma wada xuma qayb wanaagsan buu leeyahy wixii wanaagsanay uu sameeyey ku ammaan hooyo wiil fiican baad tahay saan baad samaysay kan baad samaysay waxan baad samaysay waxaasoo dhan baad ku samaysay aad baad u fiican tahay ammaantaa yar qalbigiisay furaysaa laakiin hooye waxaad ku dartaa inaad homewarigana ka shaqayso isagoo soo arkaya qof wax qabtay inuu yahay ayuu wuxuu isleeyahy intan yare ka dhibanna islaanta aad ammaanteeda wada heshide inta yarna ku dar laakiin haddaad soo gasho adigoo leh maanta o dhan shaqaad ku maqnayd ama markaad soo gasho aad leedahay yaa ka shaqaynin homewarigiisii waa dagaal arrinkaagu farfariista shaqeeya homewariga ka shaqeeya markaasay ku odhaya aaba t v-gaanu yaro dhegaysanaynayo waa kac t v leyne orod ka shaqee in yar markuu gaadho uu kaa tegi idan waxaynu leenahay rifqigaynu sheegaynaa nebi maxamed wuxuu leeyahy dabacsani wax laguma daro ilaa iyo way qurxisaa qalqallafsanaan wax laguma daro ilaa iyo way fool xumaysaa sida awgeed ninkii ku yidhi 10 carruuraa dhalo weligay mid ma dhunkanin nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddii qalbigaaga ilaahay naxariista ka siibay maxaan anigu kuu samaynaya waxay leenahay qof kasta oo dhallinyaro ah oo waalid leh
إلهي وحكوا إلى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ودبع سنو وحلنا قفك استود داعية والدين شيئا فرعون بقى اللي يري النبي موسى مركز تكتو حتكتر هذا قولا لينا وردبع سن وكدبع سن حقها شيء معها فرعون محكو يري النبي موسى مركز وتبي يا إليه ربي يا بالله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بيري لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا حقيقة الشيء يا نبي موسى كما قبرنين حقيقة لكن isagoo qowlalada ka xumbaynaya ma sheegin oo dagaalansan ee wuxuu sheegay isagoo raba qofkan inuu xaq aqbalo idan maaha macnuhu markay leenahay rifqi noqo diinta ka tag maaha xaqa ha sheegin maaha ilmaha ha sixin maaha khata ha joojinin maaha waxaasoo dhan sidooda loo saxaya laakiin qaabka loo saxayo qaabka weedha loo odhanayo ayaa waxay noqonayaan qaab fudud waayo nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad qallafsanaan lahayd oo aad qalbi adkaan lahayd dadku waa kaa yaaci lahaa hadda ma aha nebi maxamed miyaanu xaq sheegaynin may xaq buu sheegayay waxyi baanu waday kuwa wuxuu sheegayay aayaddani ku soo degtayna waa goob dagaal bay ka carareen qaar ka midi qaarna waa iska farfadhiisteen qaarna ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay adduunyo doon ahaayeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira saxaabay wada ahaayeen laakiin markan gef bay galeen qaybo badanoo ka midi saxaabadii uxud ka carartay qaar baa firdhadkii madiine ku galay gef baa dhacay atawalli yowma zaxf baa dhacay waxaasoo mashaakiloo dhacay ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddana naxariista xagga alle ka timi ee qalbigaaga gashay baad ugu dabacsanaatay dadka ee haddaad adadkaan lahayd dadku wuu kaa tegi lahaa kuwaas baa ilaahay wuxuu ku leeyahay facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr kuwaa dembigooda dhaaf oo ilaahay dembi dhaaf u weydii arrinta iyo taladana wax ka sii baa ilaahay leeyahy maalin bay gafeenoo dib loola hadli maayo nimankaasaa iska tagaan ma jirto maalin way gafeen laakiin waa laga toobad keenaa gafka saa awgeed warka aan rabaa wuxuu yahay marka xaqa waynu sheegaynaa ilaahay kitaabkiisana la qarin maayo sunnada nebigana waa la sheegayaa madaxdaa loo sheegayaa maamulladaa loo sheegayaa a'immadaa loo sheegayaa caamadaa loo sheegayaa cid walbaa loo sheegayaa laakiin usluub buu xaqu u baahay iyo dhimrin walidalik nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa dhimrintu in khayr dhammaantii uu ku jiro soomaalidu nacasnimay u haysataa socaynkaa maaha adayg iyo qallafsanida baynu ragannimo u naqaanaa marka reerkiina la soo qaado inaad qowlalada ka xumbayso oo aad wax radidid marka meel la isugu yimaado inaad hadalka dadka ku gubtid xataa haddaad rabto inaad wax sheegto hadal wada mudmudid si aad uga dan leeday kaasi hadalkii u yidhina jawaabta ka yaro bixiyo kumud kana kumud dee haddaad warma qaybinayso dad wadi kari maysa asalku wuxuu yahay xaqa inaad sheegto laakiin usluub latifan oo fiican inaad u sheegto dadka aad tarbiyaynayso ha weynaadaan ha yaraadaan dadka aad kobcinaysa rabbaynayso inaad isku daydo inaad quluubtooda haratid markaasaad caqligooda helaysaa qofkii aanad qalbigiisa helin ee cawaatiftiisa aanay gacantaada soo geli karin cuquushooduna gacantaada ma soo gelayso siiba marka la joogo qadaaya tarbiya siiba marka la joogo carruurta iyo barbaarinteeda waa inaynu rafqinimo kula dhaqannaa rafqi inaynu kula dhaqannaana macnaheedu ma aha inaynu xadhigga u sii dayno waxay doonaan ay sameeyaan waa saxaynaa laakiin waxaynu saxaynaa iyadoo aynu qalbigooda hanannay iyadoo aynu kalgacal u muujinnay iyadoo aynu u muujinnay inaynu danaynayno qofka kale sidaa awgeed wakhtigaas ka kooban oo wakhtigii laysiiyey waxaan filayaa 2-3 daqiiqa ka hadhay waxaan idiin sheegayna waa nakhtiin waa axaadiistii iyo aayaadkii culammadu idinku akhriday wax cusub idiinma sheegin laakiin midha aan rabowr inaan idiin sheegaa waxa weeyaan cuquushu ma furanto haddii aanay qalbiyadu furmin cuquushu ma furanto qofkaad qalbigiisa furi karto ayuunbaad caqligiisana furi kartaa
qofkaasaad qancin kartaa, qofkaasaad wax u sheegi kartaa, qofkaasaad waxaad u sheegtay u arkayaa inaad u naseexaysay oo u danaysay oo isaga tiisa aad ka warramaysay. hadday taasi suurtoobi weydo tarbiyadaadu waa faashil, hoggaamintaaduna waa faashil. siyaasiyiinta waddannadii muslimiinta ka jira mashkiladoo dhan waxay isku dayaan inay ku xallilaan alamnu uma alamnu uma alamnu uma alamn, booliis iyo qaanuun iyo askari in lagu xallilo. taasina waxba ma samayso, way sii adkaystaan, dadku way sii caburaan marunbay sida bambaanaa qarxaan. markay qarxaanna wixii soomaaliya ka dhaco kaluma dhaca. marka waxaan ku soo koobayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof dabacsan buu ahaa, isagoo xaq wadana xaqii wuxuu u gudbiyey qaab dabacsan. وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.